mudanayaal marweyn annagoo ka duulaynaa fikirkeenna ah in magaalada gaalkacyo ay noqoto magaalo nabada Soomaaliya dhan ay ku soo hirato ay noqoto magaalo u tartami karta inay waxa weeye caasimadda Soomaaliya ama caasimadda labaad inay noqon karto ayaan waxaan ku fikirnay inaan samayno wax magaalada gaalkacyo sawirkii khaldanaa oo laga aaminsanaa dhinaca wanaagsan u jeedin kara marar badan waxa laga yaabaa caaw hadii la arko bogfeer gaalkacyo lagu qabanaya dadka inay wax faalayaan oo yiraahdaan maxay ku soo bandhigayaan wala iyo tooriye wax miyay ku soo bandhigayaan markaas si sawirkaas khaldan dadku naga aaminsan yihiin meesha looga saaro gaalkacyana nabadeeda iyo wada jirkeeda iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda u sii xoogayso ayaa waxaan ku fakirnay inaan keeno bandhig nabadeedka buugaagta gaalkacyo ama gaalkacyo Peace Book Fair kaasoo aan rajaynayna insha Allah taala ahdaafta aan ka leenana ay tahay inuu xoojiyo isdhexgalka iyo nabadda bulshada gobolka Mudug inuu magaalada sawir fiican ka gudbiyo inuu magaalada dhaqaalaheeda waxa waaye horumar fiican u keeno inuu magaalada maalgashi gudaha iyo maalgashi inta uu soo jeedo iyo faa'iidooyin kale oo aad u fara badan oo insha Allah taala mar uu leeyahay soo bandhigi doono mudanayaal marweyn anoo soo koobaya waxaan rabaa halkan inaan codsi uga soo jeediyo maamulada Puntland iyo Galmudug heer degmo laga bilaabo heer gobol ilaa heer state inay kaalintooda ku aadan bandhig buugaadkaas nabadda gaalkacyo ku saabsan aan qabanayno inuu maamul kastaba kaalintiisna gala qaato sidoo kale waxaan u soo jeedinaynaa dawladda dhexe Soomaaliya inay ayaguna kaalintooda nagala qaataan sidii bogfeerkaasi si nabada oo u qabsoomi lahaa iyo sidii lagu talagalay ahdaafta iyo ujeedada laga lahaana loo gaari lahaa waxaan rabaa inaan halkan baaq aan uga soo jeediyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Mudug ganacsatada iyo qurba joogtada qof kasta oo haysta inay magaalada gaalkacyo iyo nabadeeda isdhexgalkeeda maal gashadaan qofkii halkii awal lagu bixin jiray dagaalada sokeeye iyo reebel baan iska dhicinayna iyo gaari baan gadanayna qori baan jarayna maanta waan bedelnay waxaan u bedelnay waxaan ka shaqeynaa nabadda gaalkacyo midnimadeeda wanaageeda soo bandhigaynaa waxaan xoojinaynaa horumarkeeda qof kasta oo reer Mudug ama reer gaalkacyo si gaar ah waxaan ugu sheegaynaa meel kasta oo dunida uu ka joogo backgroundkiisa gaar oo la fiirinayo waa magaalada gaalkacyo haddii gaalkacyo qurxoontaana adigana mustaqbalkaaga uu qurxoon yahay meelaha iyo goobaha shirarka ka qayb gashinna magac fiican baa ku yaala gaalkacyo sida ay tahay qof walba tusaale u noqonaysa inaan marka xooggeena iyo maskaxdeena iyo dhaqaalaheena aan garino inaan xoojino nabadda gaalkacyo iyo isdhexgalkeeda annagoo ka bilaabi doono insha Allah taala gaalkacyo Peace Book Fair waxaan rajaynayaa inaan iskugu imaan doono xafladdan ka qiimo badan oo si toos ah bugfeerkaas lagu qaban doono hadda bugfeerku wuxuu joogaa Daafur waxaan iclaaminaynaa inay madasha nabadda isdhexgalka dhanida gobolka Mudug ay diyaar u tahay bugfeerkaas nabadda ku saabsan gaalkacyo inay qabato dhawarkan u riyato insha Allah taala waxaan u damaanad qaadnaa dhaqaale anaga akoonkeena ugu jira maahane waa bulshada gobolka Mudug iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ayaan ku tashanaynaa dhaqaalahooda iyo fikirkooda iyo maskaxdooda waxyaalahan qorsheeyna waxa weeye inuu dhaco isla sanadkan gudihiisa hadii Ilaahay yiraahdo 2021 waxaan is leenahay hadii aysan qadartu nala dhaafin inaan qabano bandhigaas aakhirka bisha July hadii Ilaahay yiraahdo yigsiga laga leeyahay waxa weeye in la xoojiyo lana bari taaro dadaaladii nabadeed ee magaalada ka socday ee ay wadeen qeybaha kala duwan ee bulshada maamulada kala duwan ama ha noqdeen heer gobol heer state heer degmo intuba dhalinyarada odayaasha in la xoojiyo dadaalada noocaas ah ayaa ugu muhiimsan higsiga laga leeyahay dadka ka soo qayb galaya oo la rabo in lagu casumo programkaas oo Soomaaliya oo dhan ka imaan doona waxay kala noqon doonaan qorayaal kala duwan maadaama buug meesha laga sheegay qorayaasha ayaa qayb ka ahaan doona gobolada kala duwan ee Soomaalida jooga si ay ugu soo bandhigaan talantigooda iyo wixii ay qoreen ee bulshadooda wadaagaan sidoo kale waxa qayb ka noqon doona hadii Ilaahay yiraahdo maamulada Puntland iyo Galmudug oo marti loogu yahay ayaga gaalkacyo ayaa qayb ka noqon doona hadii Ilaahay isimada gobolka ayaa lagu casimo doonaa isimada kala duwan ee Soomaaliyeed waxa qayb ka noqon doona maadaama nabadda laga hadlayo teamka aan qaadanay oo nabadda quseeyo dadka u ololay arrimaha nabadda aqoon-yahano kala duwan oo elite-ka Soomaalida ayaa ayagana rajeynaya hadii Ilaahay yiraahdo inay qayb ka noqdaan siyaasiyiinta kama marna ayaguna gudiyada nabadda ee Soomaaliya hadii Ilaahay yiraahdo suugaan yahano ganacsatada inahaas waxaan is leenahay waa qeybaha ugu muhiimsan ee bandhigaas lagu casumi doono hadii Ilaahay yiraahdo
deegaanada ay martida ka kala imaanayso haddii ilaahay idmo waxaan is leenahay martidaas sida aan qorsheynay martidaas inaan ka kala keenna haddii ilaahay yidhaahdo deegaanada ama maamul goboleedyada ay uga horeeyaan puntland iyo galmudug oo marti loo yahay somaliland gobolka banaadir koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle iyo dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya maxaa la qaban doonaa dadku waxay isweydiinayaan dadkaas marka la isu keeno intaa faraha la eego soomaaliyeed ee bulshada madaxdeedii ah gobol walba waxaa laga keeni doonaa dadka ugu muhiimsan ujeedka laga leeyahayna waxa weeye dad in la keeno ama lagu casimo bandhigan dad fariinta ay halkan ka qaadaan kumanaan kun oo kala gaarsiin kara si ay bulshada u aragto waxa meeshan ka jira gaalkacyo isu dhexgalkeedii in badan baa laga soo shaqeeyey maanta gaalkacyo uma baahana in ay isu dhex gasho waqooyi iyo koonfur ama puntland iyo galmudug waxay u baahan tahay in bulshada laga gado kale ee deegaanada kala jooga gaalkacyo xaaladda ay maanta ku sugan tahay qof kasta oo gaalkacyo kusoo qaadid oo deegaan kala jooga dhulka soomaalida aad baan u maray qofka markaa kusoo qaadid waxaa kusoo dhacaya magaalo gate weyn laga galo oo dhinacana aadan u gudbi karin dhinac kalena aadan u gudbi karin qofka markaa soo kaxaysido oo aad tiraahda xaggaan u gudbaynaa wuxuu sugayaa inuu ganjeel laga furo ama ugu yaraan uu meel joogmeyntu weyn yaallo oo masaafo la soconayo la arko marka dadka noocaasa ujeedka aan ka leenahay waxa weeye aan casumayno dad lasoo xuulay oo laisleeyahay fariinta noocaasa ayay magaalada fariin ka duwan ka qaadi karaan si ay bulshadooda la wadaagaan maxaa la qaban doonaa waxyaalaha la qaban doona waxa ugu muhiimsan in buwaagta qorayada soomaalida caanka ay bandhigeen ay soo jeediyaan ay bulshada la wadaagaan nuxurkooda iyo faa'iidadooda waxaa kaloo laga sheekayn doonaa meesha ka jiri doona fooramiyo ama waxa la yidhaahdo cilmiyeedyo la xiriira arrimaha nabadda iyo isdhexgalka xoojinaya si ay bulshada uga faa'iidaysato sidaasa lamida suugaan ayaa lagu soo bandhigi doonaa kala duwan dhalinyarada ayaa lagu dhiirigelin doonaa haddii ilaahay yidhahdo inay nabadda iyo isdhexgalka ka shaqeeyaan xirfadoodana kor u qaadaan waxaa la samayn doonaa safaro ama booqashooyin lagu marayo magaalada geesaheeda iyo hareeraheeda iyo haddii ilaahay yidhahdo meel kastoo booqasho loogu talagalay oo gobolkaana si loo tuso dadka nabadda iyo isdhexgalka deegaankan ka jira waxaa la samayn doonaa bandhigyo la xiriira fursadaha iyo caqabadaha ay gaalkacyo haysato iyo sida fursadaha looga faa'iidaysan karo sidoo kale waxaan ka marnay bulshada imaanaysaa sidoo kale inay ka faa'iidi doonaan buuggadasho in la samayn doono xilli loo qoondayn doono buugta qorayaasha laga iibsato imaanaya deegaanada kala duwan ka imaanaya kelmadaha madaxda ayaan ka marnayn riwaayada ayaa lagu soo jeedin doonaa xoojinaya arrintaas sidaas in lamida dood cilmiyeedyo ayaa ayagana jiri doona maxaa laga faa'iidayaa marka bandhigan maxaa faa'iidooyinka bulshada soo gelinaya waxaan is leenahay faa'iidooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah in lagu xoojiyo akhriska iyo qoraalka tusaale ahaan bulshada beesha ay ka hormarha bulsho walba waxa ugu muhiimsan akhriska iyo qoraalka waxaan is leenahay bandhigaas haddii la qabto waxa uu xoojin doonaa akhriska iyo qoraalka magaalada maktabada ka jira haddana aad baan anigu ugu xirnahay oo dadka booqda ee reer gaalkacyoodka ama reer mudugaahay aad iyo aad bay u kooban yihiin marka waxaan is leenahay bandhiga noocaasa haddii la helo maktabadahaasna way ka faa'iidi doonaan akhriska iyo qoraalkana wuu xoojin doonaa hiddaha iyo dhaqanka ayuu iyadana dhowri doonaa ama qeyb ka qaadan doonaa maadaama uu qeyb ka yahay dhaqanku haddii ilaha yidhaahdo kobcinta garaadka daayarta maadaama tababaro iyo fooramiyo iyo dood cilmiyeedyo muhiim ay ku jiraan oo dhalinyarada iyo nabadda iyo isdhexgalka quseeya iyadana qeyb ilxaadla ayay ka qaadan doontaa haddii ilaha yidhahdo faa'iidooyinka laga heli doono oo kale waxaa ka mid ah in la isku xiro xarumaha fikir ama maktabado ama akhriska iyo qoraal ka shaqeeya ee deegaanka ka jira labadiisa dhinac haddii ilaha yidhaahdo ay isugu yimaadaan hal meel isugu yimaadaan isbartaan kala warqaataan halkaa waxaa kaloo kasoo bixi doona intaa markii la qabto faa'iidooyinkaan isleenahay waa laga dhaxlaya waxaa ka mid a in la helo hal abuuro cusub ama qorayaal cusub oo jiilkan usoo baxaan maadaama ay arkayaan dad badan oo deegaano kala duwan lagu casumay oo liajli wax ay qoreen ama waxay soo bandhigaan lagu casumay halkaa waxaa kasoo baxayay dadka deegaankan inay fadhiga ka kacaan ku dhiiradaan inay wax qoraan wax soo saaraan hal abuur ay la yimaadaan si ayagana marka dambe programkan loogu casumo qofku wuxuu isweydiinaya waayo oo qofkan loogu casumay muxuu kaaga duwan yahay waana meelaha ugu badan anu markhaatiga ka aha dad badan ay kusoo baxeen waxaa kaloo muhiimad gooniya kula in la isu keeno hal abuurada kala duwan ee deegaankeena ku nool gaar ahaan guud ahaanna in ay isku bartaan hal abuurada soomaaliya oo dhan jooga maaha labadeena dhinac keliya innaga keliya maadaama la isu keenayo iliidkii bulshada soomaaliyeed oo dhan inta ugu muhiimsan gobol walba inay iyagu isku bartaan oo isdhexgalkii aan heer ka dhigno national ah
oo gobolkan aan ka gudubno. arrinta kale ugu muhiimsan muhiimad gooniyana innaga waxa weeye oo ay faa'iideynayso in dadka imaanaya iyo dadka ay ku xiran yihiin ee deegaanadii ay ka yimaadeen ay la wadaagi doonaan fariintaasba laga saaro fikraddii khaldaneed ee magaaladan laga aaminsanaa ee ahayd inay tahay magaalo qofka maskaxdiisa wax aad iyo aad uga fog waxa uu ku arki doono uu kala kulmayo. arrintaas oo si gaar aan rabnin ayaga looga shubo mar labaadna ay kasii shubaan bulshooyinka ay ka yimaadeen. waxaan islenahay qodobkaas waa qodob muhiimad gooniya u leeyahay dadka aan rabno inaan ku casuuno. qiyaasiis ilaa iyo 57 ruux oo banaanka ka imaan doona ayaa lagu casumi doonaa oo Soomaaliya oo dhan ah. arrintaasina waxaa lagu xulan doonaa oo ugu muhiimsan inay yihiin dad waxa meeshaan lagu kala qaato sii gudbin kara oo fariinta magaalada qaadi kara. faa'iidooyinka laga dhaxlayo iyo muhiimadda uu leeyahay gobolkan runtii dhammaantiin waynu ka dharagsannahay. si fiicanna waxaa u sharaxay Bashiir Suuley oo ah agaasinka barnaamijka kan ama mashruucan. laakiin waxaan jecelnahay insha Allah tacaala inaynu idinka codsano dhammaantiin anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada in mashruucan aynu isugu geyno gacanteen haddii Ilaahay idmo. annagoo ka dhalinyaro ahaan xoog iyo xeelad waxaynu leenahay miiskeena soo saaraynaa. shaqo dhib yar ma ahan, waa shaqo aad iyo aad u ballaaran, u baahan energy tiro badan iyo hadduu Ilaahay idmahayo iyo fikir iyo farsamo aad u tiro badan. marka anigoo ka bilaabaya labada maayer magaalada Gaalkacyo oo barnaamijkan hoostiisa yeelan doono haddii Ilaahay idmo, waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inaan gacmaha ku wada qabanno haddii Ilaahay idmo. bahda waxbarashada inay barnaamijkan soo dhaweyso ayaanu rajaynaynaa. arrintaa waa la qaadanay insha Allahu tacaala, waana soo dhaweynaynaa, gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa, waana la shaqeynaynaa haddaan nahay macallimiinta iyo maamuladii iskuullada. barnaamijkan oo runtii lafdhabar u ah maaragtay waxbarashada iyo nolosha Gaalkacyo ka jirto. xaqiiqdii waxa weeye waa barnaamij aad iyo aad anfac u leh dhammaan ummadda reer Gaalkacyood. aad baan u soo dhaweynaynaa, waanu ka qayb qaadanaynaa insha Allahu tacaala. hil iyo hoona waa la garab taagannahay. waxaan u mahadnaqayaa madasha ragga usoo dhabar adeegay iyo gabdhaha usoo dhabar adeegay hawshan nabadda, oo qaar ay dhinteen qaarna ay nool yihiin. ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay, kuwa noolna ilaahay waxa weye cimrigooda ha u barakeeyo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. taariikhdaana idin xusi doonto insha Allahu tacaala. waxaan soo dhaweynaynaa daafurkan bandhiga cilmiyeedka ama qoraalka iyo nabadda iswata ee Gaalkacyo ay martigelinayso. ani waxaan rabaa muhiimadda uu leeyahay waa laga hadlay, inaan ku biiriyo howl weyn oo maaragtay magaalada dhan u noqon doonta tijaabo oo cusub ayaad maaragtay dhalinyarada ay soo qaadatay. waqtigana wuu yar yahay haddii July la qabanayo, u diyaar garow badan bay u baahan tahay. bahda waxbarashada annaga qaybta ugu weyn aan qaadanayna, haddee noqon lahayd soo dhaweyn, haddee noqon lahayd inaan doodaha ka qayb qaadano, haddee noqon lahayd magaalada nadaafadeeda inaan ka qayb qaadano. Gaalkacyo sida walaalkay iga horeeyay uu sheegay waxaa laga aaminsan yahay fikrad khaldan oo ah in magaalada kala qaybsanta. by the way magaalada meelaha ay labada maamul iska galaanna waa meelaha magaalada ugu fiican oo maaragtay la fiiriyo suuqyadii iyo isdhexgalkii ugu fiican yahay. hawsha ugu weyn ee arrinta laga faa'iidi karo waxa weeye in laamiyada u dhaxeeya labada maamul leerar badan aan ku xirno oo aan nadaafadeeda ka qayb qaadano oo calamo wada jir aan ka qayb qaadano. way message markaan gudbinayno qaabka u diyaarsannahay ayaa maaragtay ayaa laga dareemaya. runtii waxaan u mahadcelinayaa madasha isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug oo runtii shaqo in badan dabcan dadka maskaxdooda ka guuxasay ama dhalinyarada ama dadka gobolka Mudug bilow fiican iyo shaqo fiican ka soo qabtay oo noo soo bilaabay. runtii haddaan bahda waxbarashada nahay waxaan filayaa dabcan madasha si dadban iyo si toosaba ilaa bilowgii xilliyadii Gaalkacyo hadda wax ka dhici jireen iyo xilliyadii soo madhay qayb lixalan ka ahayn. waxaan filayaa waxay ahaayeen waxbarashadu qaybaha ugu horeeya ee ka shaqayn jiray ama ay ka soo bilaabatay ama ka soo iskuntay fikirkan isdhexgalka bulshada gobolka Mudug iyo in laga shaqeeyo nabadda, iyadoo dabcan ay xilliyadii xataa wax dhici jireen ay isbooqan jireen, wada shaqayn jireen, xafladaha ka wada qaybgeli jireen, dadka wacyi gelin jireen xarumaha wax lagu barto. marka runtii aad baan barnaamijkan book fairka ah oo book fairka u dhiirigelinaya, aad baan usoo dhaweynayaa. waa taageersannahay. haddaan bahda jaamacadana dabcan waa naloo hadlay oo intii hore kusoo celin mahayo.
laakiin xoog iyo xeelad iyo mataqaanaa waxoo dhan inaan kaga qayb galno insha allahu diyaar ayaan u nahay haddaan bahda jaamacadaha nahay. madashan waxaan rabaa inaan la wadaago waxa yaroo taariikha magaalatan ay leedahay. magaalatan 70-aadkii baan waxaan ka bilaabay tacliin dugsi sare oo markaa groupkayga lagu furay. waxaa ka soo qayb galay oo iskuul aan sugalaas ahayn annagoo 64 arday ah. magaalada Hargeysa, magaalada Boorama, magaalada Burco, magaalada Laascaanood, magaalada Qardho, magaalada Garowe, magaalada Ceelbuur, magaalada Dhuusamareeb. high schoolska aan markaa dhiganayna groupkaas labada class oo 64 ah oo boarding oo iskoolka Cumar Center loo design gareeyay. intaasoo meelood bay ka yimaadeen. intaa marka waxay ka cad gaalkacyo waxay tahay in Soomaaliya oo dhan markaas ay isugu yimaadeen annagu aan isdhahayna hebel xayee ka yimid iyo muxuu yahay. taariikhdaas ayaan soo noqoto waan jeclahay. waxaa kaloo magaalada iyaduna caan ku tahay dad badan ogeyn waxaa la yiraahdaa magaaladii buugga iyo qalinka. waagu markuu bariyo age-ka maxaa formal education ku jira waxbarashada ayaa tacliinta ay jiray. galabtina inta ka baxday waqtiga waxbarashada dhalinyaranimada ayaa waxbaran jiray. marka waxaa loo jeeday magaaladii qalinkii qof walba qalin iyo buug buu sitay. waxaa misna yaab loo xasuustaa dadka galab habeenkii waxbaran jiray. buug waxaa jiray English language ka la basic wideries oo 5 volume qofka dhameeya buugaas hadda wuxuu furi jiray iskuulka uu ka dhigayo 5 buug la 5 buug bas targareeyay. magaalada noocaas ay joognaa. caaw halka marka waxaan u taagnahay waxaan kaloo soo taagnaa taariikhiyan gaalkacyo hal meeyar u maamulo. wagaas waxaa la oran jiray Sindeco ama DC ama Commissary waxaas la oran jiray. ayada ana arko waan jeclahay iyadoo hal meeyar leh maxaa yeelay feasible maahan magaalada tani runtii farsamo ahaan iyo sida Ilaahay ka dhigay waa hal magaalo. marka hal magaalo waxay weeyaan yeelataa hal maamul. intaas aan wada xaqiijino ugunaad waxaan soo dhaweynayaa dhalinyarada hamiga quruxda badan ay keeneen oo magaaladii loo oran jiray buugga iyo qalinka taariikhda iyada ahayd inay mar labaad soo nooleynayaan oo halkan ay soo keenayaan wax garadka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ayuu mar labaad gaalkacyo waxay soo celinaya yool guduud meel la yiraahdo oo hadda xaafada Gedigaas ku taal baa waxay noo ahaan jirtay meesha aan booniga ku ciyaarno xaafadaha magaalada oo dhan iyo hay'adaha dawladda iyo iskuulada. magaalada hadalka ugu dambeeya aan dhahayo oo majcawr inay joojin baan jeclaan lahaa waxay lahaan jirtay 3 luqad oo majorka wadanka ka socday markaas oo ajaanibta wax lagu baran jiray la Soomaaliga lama qorine iskuulka Carabiga iskuulka Ingiriiska iyo Italianka. marka ilmuhu awood waxay u lahayn waalidkood inay ka dukaameystaan tacliinta. waxaan rabaa kaliya inaan sheego nabadda gaalkacyo cidda ay nabaddarradeedu saameynayso ugu badan waxay bahda waxbarashada. cidda ka shaqaysay madasha ugu xooga badanina waxay tahay bahdii waxbarashada. hoggaanka madasha ugu sarreeya iyo xubnaha ugu firfircoon iyo inta badan dadka madasha u ololaya waxay u badan yihiin barayaasha jaamacadaha kuwa iskuulada dadkii rikoorka dhigay ee banaanbixii ugu weynaa sameeyey waxay ahaayeen ardaydii wax baranaysay. cidda ka faa'iiday nabaduna waxa weeye oo ugu badanina waa ardaydii wax baranaysay. haddaan marka bahda waxbarashada nahay waxaa naga go-an inaan xoojinno nabadda gaalkacyo. maadaama dhalinyaradu la yidhaahdo dadka maanta ayaa ugu badan Soomaalida dadka waxbarashada maanta gacanta ku hayaana dhalinyaradu u badan yihiin waxaa runtii waajib naga saaran yahay inaan ku dadaalno sida ay nabadda gaalkacyo u noqon lahayd mid saldhigata. aan ka gudubno isdhexgal aan ka gudubno inaan ka baqno in wax dhacaan aan ka gudubno in wax la heshiisiiyo aan u gudubno sidii kale ee noloshu u sii hagaagi lahayd u sii wanaagsanaan lahayd. aad baan ugu mahadnaqayaa cid waliba ka soo qaybgasho barnaamijkan. waxaan xoojinayaa codsiga ah in la garab siiyo hal abuurkan dhalinyaradu ay soo maaragtay keeneen ee ah in la qabto bandhigaas ee u leh faa'iidadaas gaalkacyo. barnaamijkeennan soo dhaweyntiisa iyo ku faraxsanaantiisa inuu gobolka yimid runtii qof walba qalbigiisa ku jirtaa.
laakiin sida muuqata walaalaheen meesha waxay kusoo bandhigeen inaan hananno iyo inuu run noqdo cidda ka dhalin karta waa innaga. waxaa intan koobanna loo soo xushay waxa weeye runkaha sheegiisii iyo barnaamijkaas miro dhalkiisii in la helo. ka aniga Axmed Huruuse ahaanna waxaan rabaa barnaamijkan inaan $1 ugu deeqo si ay u noqoto daafuridiisii iyo hirgelidiisiiba. waxaana rajaynayaa haddaan biri qof iiga hormariga koonka qofka ugu horeeya ku shuban inaan noqdo. waxaana rajaynayaa insha Allah in barnaamijkan anagu aan ka run sheegno. aad baan u mahadsan. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. taariikh qurux badan baan rabnaa gobolka inaan ka reebno hadduu alla idmo. cid walba waxaan leeyahay oo gobolkan dadka jooga ah gobolka Mudug ka qayb qaata book fairkan insha Allah. waxaan rajaynayaa inuu si nabad ah noogu bilowdo, si nabad ah noogu dhamaado, aan noqono dad waxa weeye iftiinka hadda aan u nahay bulshada Soomaaliyeed ka faa'iideysta, dad taariikhdooda aysan burburin ay horay u socoto. ilaa hadda waana la dimin laayahay mar walba oo meel naga awdanto meel baa noo furanta. alxamdulillaah rabbil caalamiin. waxa weeye inaan u tashano sidaan buuggaan hawshiisa u gabagabayn lahayn. runtii waxaan u mahad celinayaa soo qabanqaabiyaasha madasha. waxaanu leeyahay insha Allah tacaala haddaanu nahay bahdu ganacsatada gobolka Mudug labada dhinacba diyaar baanu nahay inaan maalgelinno ku bixino dhaqaale naf iyo maalba in amniga iyo nabadda iyo horumarka iyo waxbarashada gobolka kor loo qaado. insha Allah tacaala waxaan dhammaan u baaq u dirayaa ganacsatada gobolka Mudug hadday tahay Puntland iyo Galmudugba in muxuu ahaa la dhiirigeliyo dhalinyarada iyo madasha laguna taageero wax walba oo dhaqaalaha kaga qayb qaadan doona insha Allah tacaala. markaan fiirino awoodda iyo shaqada ay qabteen dhalinyaradan isdhexgalka waxay la mid tahay shaqadii ay qabteen kuwii qoryaha watay ee dhinaca xumaanta u qabteen bilcagsigeedii shaqo oo wanaag ay qabteen. marka qof kastoo rabaa inuu qeexo wanaagga bulshada ay u qabteen dhalinyaradan wuxuu qiyaasayaa dhibaatadii dhalinyarada kale wax baran oo qoryaha watay ay u geysteen magaalada mid la mid ah bilcagsigeed inay u qabteen oo wanaaga. taas ayaa horta qiyaas nagu filan. waa soo dhaweynayaa buug feerka nabadda gaalkacyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. hawl aad iyo aad u baaxad leh ayaad qabateen. ilaahay waxaan ka rajaynay inuu miisaanka xasanaadka inugu dari doono. wax laga shaqeeyo waxa ugu wanaagsan ummad islaaxinteed iyo hagaajinteed iyo ka shaqaynta horumarka gobolka aan ku noolnahay. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. waxaan leeyahay runtii sidii ragga hore sheegay taariikhda ayaana xusi doonta. dhammaan waxaan u mahadcelin doonaa sidoo kale dadka maaragtay madaxda mas-uuliyiinta gobolka oo garab taagnada iyo kuwa degmadaba aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa. intaa kadib waxaan rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay aan ka dhigo anoo ku hadlaya magaca wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga dowladda Puntland ee gobolka Mudug inaan ka qayb qaadan doono haddii Ilaahay aan ka dhigo dhammaan wixii dhalinyaradaas nooga aadan oo waxa weeye isgarab taag ah dhinac walba haddii Ilaahay aan ka dhigo. intaa kadib waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo guud ahaan ganacsatada Puntland iyo Galmudug, mas-uuliyiin maamulada Puntland iyo Galmudug, aqoon-yahanka Galmudug iyo Puntland iyo dhammaan cid kasta oo nabadda gaalkacyo danaynaysa iyo horumarka gaalkacyo oo aan ka codsanayno inay nagala qayb qaataan hirgelinta bandhig buugeedka nabadeed ee gaalkacyo oo la qaban doono insha Allah tacaala dabayaaqada bisha soo socota ee July. bandhigan waa markii ugu horeysay oo gaalkacyo lagu qabto, waana markii ugu horeysay oo bandhig buugeed nabadeed lagu qabto guud ahaan Soomaaliya. waxa uu bandhigyada hore kaga duwanaan doonaa sida ay mas-uuliyiintii hore inoo sharaxeen in qasdiga laga leeyahay ay tahay muujintii nabadda. qadiyadda la samayn doono keliya ma aha in buug lagu soo bandhigo buugna lagu gado, laakiin dad ka soo qaybgeli doona waxaa ka mid ah dadka gacanta weyn ka geystay dib u heshiisiinta Soomaaliyeed iyo aqoon badan iyo karti badanna u leh dib u heshiisiinta oo aan rabno inay bulshada ku wacyigeliyaan waxa ay tahay dib u heshiisiinta iyo waxa ay tahay isdhexgalka. insha Allah tacaala waa ku guuleysanaynaa, waana qabanaynaa, mid qurux badan baana qabanaynaa. insha Allah tacaala kulanka xiga wuxuu noqon doonaa daahfurka
oo ay kasoo qeybgeli doonaan mas-uuliyiin waaweyn oo heer puntland iyo heer galmudug ahba. aan rajeynayna inay kasoo qeybgeli doonaan madax badan oo heer soomaaliyeed ah iyo bulshada caalamka guud ahaan, si ay u ogaadaan heerka nabadda gaalkacyo ay mareyso. meeshii laga keenay way ogaayeen, laakiin meesha hadda ay mareyso si ay u ogaadaan. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inay hormuud noogu noqon doonaan maamulada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug, maamulada degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland, qabsoomidda kulankan hadduu la yiraahdo. kulankan oo aan dareemayo waxaa laga hadlaya inay tahay nabaddii gobolka mudug guud ahaan soomaaliyana ay tilmaam u tahay magaaladan gaalkacyo oo taariikh hore laheyd, laakiinse wax yar oo wasaq oo soo gaaray dhaqmadeedii hadda ay socoto. waa ku faraxsanahay, dadkuna waa caajisan yihiin. bandhiga buuggan garab iyo gaashaan ayaa u ahay. xildhibaanka dhallinyarada meesha ku matashana waa aniga. afkii xildhibaanada labada gole puntland iyo galmudug ayaan ku hadlayaa. guddigii loo xil saari lahaa dhaqaalaha xildhibaanadana soo diyaarsada, mar dhow waxbaa yaa mar raba intaasna u dhaafo. annaga warbixinadeenna labada caasimadood ayaa noo soo kala diraysaan xilligii wax soo dhowaadaan. kolle dhegta idin taagan, waana mahadsantihiin inaa idin dhiirigelinaan, waajib bay nagu tahay. mar raba intaas inaa u dhaafo, waana mahadsantihiin. mudanayaal iyo marwooyin, caaway farxad weyn bay noo tahay inaan kasoo qeyb galno runtii daahfurka bandhiga caaway buuggan qiimaha weyn halkan caaway lagu daahfuray. sida uu sheegay saaxiibkay burhaan, runtii waan qandhanaa, anigoo qandhan oo jiifo oo daawo isticmaalay baa saaxiibaday ii yeereen oo soo baxay. sababtuna waxay ahayd ahmiyadda ay ka shaqeynayaan dhallinyarada qiimaha badan ee madasha iyo isdhexgalka, inaan runtii aanan marnaba isku dayin inaan ka cudur daarno biidni illahi tacaala, iyo dhammaan gobolka mudug nabadda looga shaqeynayo. caaway bandhiga buuggan saaxiibkay maxamuud cabdinuur iyo aniga iyo mas-uuliyiin kale ee kasoo kala jeeda puntland iyo galmudug ay goobjoogga ka yihiin. waxay farxad weyn nagu tahay mayor cabdinuur saaxiibka iyo aniga meeshii gaalkacyo la keenay ee saaxiibadii naga horreeyay ay soo gaarsiiyeen, maamuladii iyo dhaqankii iyo dowladdii iyo dhammaan dhallinyaradii iyo aqoon-yahankii iyo hooyooyinkii iyo dhammaan inaysan gadaal kaga noqon ba xoogga saarnay insha allahu tacaala. annaga iyo runtii golayaasheena deegaanka oo saaxiibkay xasan cali xasan iyo ragcadda halkan ka fadhiyaan, waktiga ugu badan waxaan ku bixinaynay in nabaddu caga dhigato, bulshaduna oo nagu garab taagnaayeen. waxaan leeyahay madasha isdhexgalka mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinku dhiirigelinaynaa mar kale iyo mar kale hamigiina inuusan gadaal u laaban insha allah. waan ka cudur daaranayaa xafladda gabagabadeeda inaan sugi waayo. runtii justificationkan horaan usoo dhiibay intaan imaan markii horaan u sheegay saaxiibaday ku ilowni qandhaan dareemayaa, weliba runtii aada ii taabanaysay. waxaan rabaa inaan idhaahdo insha allahu gaalkacyo boog peace ama gaalkacyo peace book fair waxay noo tahay dhammaanteen tilmaan aan higsanayno. waan idinku dhiiragelineynaa inayna marnaba ka caajisin, dhaqaale kaga baqin, runtii aynan culays ka dareemin. higsiga hadda aad kusoo istaagteen halkan aad ku keenteen caawa daafurkiis, inaan marnaba ina ka niya jibin insha allah. meesha iyo meel ka xoog badan inaa gaarnaa ilahay ka rajaynaynaa. waad arkaysaa caawa waa 11 ama 10 fiidnimo weeye. waxaynu ka kala nimid xaafadaha magaalada gaalkacyo, nin walba isagoo walwal la-aan ayuu gurigiisa aadayaa. maxaa kalifay? wada shaqaynta iyo nabadda weeye. gaalkacyo waxaynu rabnaa maanta inaynu weji cusub u furno oo buug feerkan uu kow ka noqdo, inaynu wixii hadda ka dambeeya isweydiino maxaa horumar ah oo magaalada gaalkacyo kusoo kordhin kadhaa. qof walbow nabaddii quruxda badnayd
oo aynu waxa weeye ka wada shaqaynay miro dhalkeeda baynu joognaa miro dhalkeeda haddaynu joogno mar walba inaan nabad ku celcelino maaha nabaddii waa haysanaa iyada inaan xagsanno kow aana ka fakarno sidii horumarka magaalada looga wada qayb qaadan lahaa annagoo isku duuban aynu aniga maayer cabdiraxmaan waxaan ku midaysannahay hay-adaha horumarka ka shaqeeya inaan isku mar la fadhiisanno isku mar u yeerno isku mar qaabilno aanan idhaahno maxaad gaalkacay u haysaa inaysanna kala shaxaadin inaysan marna isaga la shirin marna aniga iga shirin marna isaga aan loo sheegin kaar xun oo qaxootiyo waxa weeye $50 ku jiro anna aan lii sheegin laakiin waxaan rabnaa alxamdulilah dadku waa nool yihiin $50 waxay ka bedelaysaa gaalkacay ma jirto waxaan rabnaa mashaariicda waaweyn oo hadda suurto geliyey inaynu si fudud magaalada isugu furanto oo waddooyinkan hadda isdhexgalkaa 3 waddo ah iyo street lightskooda kuwa lamida inaan wada fulino oo gaalkacayo aynu townplan u wada samayno aynu qorshayn magaalo u wada samayno aynu waxa weeye ummaddii jihayno dhallinyaradii shaqo abuur u abuurno waxa aan doonaynaa waxaas weeye waxaan u diyaarsannahay inaan si walba uga qayb qaadanno hadday dhaqaalo tahay hadday tahay inaan door ku yeelanno qabanqaabadiisa inaan damaanad qaadno amniga dadka isku imaanaya inaan damaanad qaadno soo dhawayntooda inaan mar walba garabkiina ahaano haddii ilaha yidhaahdo anigoo ku hadlaya afka labada guddoomiye gobol waa mahadsan yihiin dhallinyarada isdhexgalka iyo madasha gobolka mudug runtii barnaamij aad iyo aad loogu baahnaa baad soo diyaariseen aad iyo aad buuna ii farxad gelinayaa anigoo runtii ka tirsan madasha isdhexgalka gobolka mudug muddana ka soo shaqaynayay bandhiga caawa halkan ama daahfurka halkan lagu daahfuray bandhiga ama dhacdada nabadda ee buugfeerka ee magaaladan gaalkacyo ka dhici doona oo sanadlaha ah ujeedooyinkiisii runtii aad baa loo soo akhriyay ayagoo aad u tiro badan laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha maskaxdeena aan ku qori karno oo aan kasii dhex fiirin karnaa waxay tahay waa dhacdo sanadla ah waxay noo bedeli doontaa dhacdooyinkii sanadlaha ahaa ee ku saabsanaa colaadda xoolo kala dhicidda iyo wax walba oo khilaaf keenaya ayuu noo bedeli doonaa marka waxyaalaha runtii aan isleeyahay in la taageero oo sanadkaasoo dhan dee wax kaloo laga shaqayn doono ma jirto walaalaheena runtii dhibaato badan ay ka jirto baadiyaha ee xoolaha kala qaadanaya 3 bil markay ka dhimantaha waxaan isleeyahay aan ku tegi doonaa wafdi geeli iyo xoolihii la kala qaadan jirana waxaan kasoo qaadan doonaa intay nagu deeqaan si mashruuca loogu maalgeliyo marka dhacdadan sanadlaha ah waa dhacdo runtii magaaladan gaalkacyo iyo gobolkan ka bedelaysa sidii uu ku jiray marka in juhdi iyo maskax iyo aqoon iyo dhaqaale la geliyo baa annaka inaga sugaysaa kow reer gaalkacyooda waxaan aada ugu faraxsanahay in maayarkii labadii maayar bacaawa halkan ay noo joogeen oo ay noo dahfureen oo ay markhaati noo ahaayeen sababta ugu weyn oo halkan ay u joogeenna waxay tahay in ay yihiin reer gaalkacyood dadka mashruucan iskale la rabo inay ayaku maal gashadaan aad baan ugu mahad celinayaa haruuse oo runtii deeqdii u horreysay ku deeqay waxay ka turjumaysaa inaysan qof kala sugeyn oo annaka jeebkeenna ay sugayso inaan maal gashan oo dhaqaalaha sanadkii ku baxay bashiir aada u fiicneed inuu la wadaago lacag aada u yaro aan isleeyahay 60-70 kun ooreyda hadda kun ka mid waaba la haystaaba reer gaalkacyo miyaa laga weyn karaa 70 qof oo $1 bixis lagama weyn karaan isleeyahay haddii lasii jajabiyana dee waxay ku soo arooreysaa 100 qof oo contribution bixis marka runtii maalgelin weyn meeshaan ayaa laga fiirin dhexdeena ay ku jirtaa